يا هذا بسم الله الرحمن الرحيم. عاوة وبشا فبراير أي تحي له شن بيكسر بحري لحدي فبراير لما كنا يلاتني يكون مقالة سمرب وحين نكون قبلنا شركة رايدة وكسافسن شركة شنطة معلومات كسبدي مقالة وكو باقي مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية محمد عبد الله فرماجو أي سوي بعدين مدحدا مامور goboleedyada dalka iyo xukuumadda federaalka shirku uu soo gabagaboobay saacadahan hadda la hadlayo wax yar ka hor shirka oo bilaabmay madaxdu yimaadeen kowdii bisha Isniintii salaasadii arbacadii toos bilaabmay khamiistii iyo jimcihii soconayay maalin iyo habeen soconayay subax duhur gelinka dambe habeen saxbaxe inta soconayay يدعو جبجبدي سيجونا. أجنده شكو وحوها هشيس كي تطبيق تمكي سبتمبر. لما كوني يلا معتم. هذا الله يوح كسر نقدين شركة تطبيق تمكي سبتمبر. اللي جوجا أميي تورشة لما كون لما تني يكون. ما راح يعود سطحي شركة ولا يسوي معطى. iyo hal go'aankii madaxweynaha ee shir la qabto ayuu ka dhashay shirkan saddex ajende oo laga soo dheegay 17 September ayaa u ahaa lafdhabar shirka sanadkan wuxuu ahaa ka koowaad arrinta guddiyada doorashooyinka oo xubnaha ka mid ah dowlad goboleedyadu ay sheegeen inay ku jiraan shaqaale dawladeed iyo ciidan arrinta aad baa looga dooday heshiiskii 17 September waxa ku xusan qofka noqonaya xubin commission inaanu ku jirin siyaasadda daadiisa ku xusnay iyo inaanu ku jirin siyaasadda laakiin kuma jirin shaqaale ciidan iyadoo la xeerinayo isu soo dhawaashaha ummadda Soomaaliyeed lana rabo in doorashadu qabsoomida doorashada la dardargeliyo madaxda xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxa ay ogolaadeen in ciddii wax ka qabta guddiyada doorashooyinku ay u furan tahay oo ay keeni karaan oo ay oran karaan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo qaabilsan guddiyada xubintan waxaan ku eedeynaynaa waxa hana laga bedelo ama waxaasaan aaminsanahay taasoo la isla qaatay xafiiska ra'iisul wasaaruhu arrintan inuu maamulo ciddii xubin commission wax ka soo noqdaan wax la turxaan saaro oo wax laga qabto iyadoo gar loogu lahayn waa inay heshiiskii hore ku jirin haddana xukuumaddu waxay qabashay qofkii commissioner laga keeno cabasho ama dhexdhexaadnimadiisa laga keeno su'aal inuu ciidan yahay iyo inuu shaqaale yahay in xafiiska ra'iisul wasaaraha keeno qodobka labaad wuxuu ahaa aad looga dooday arrinta gobolka Garowe sida la wada socotaan sidii ay doorashadii Jubbaland u dhacday ilaa hadda state-ka Jubbaland khilaafkiisu marna ma gelin turxaamihii iyo turunturooyinkii iyo isdiidooyinkii ka dhashay doorashadii Jubbaland ilaa hadda waa tasaamaysay goboladii maamul goboleedka Jubbaland arrinta Garowe waxay qayb ka ahayd khilaafaadka shacabkii ku noolaa Jubbaland ay ku qaybsameen doorashadaas waxa la soo jeediyay xukuumadduna ay aqbashay dhexdhexaadiyaashana ay ku taliyeen kow in la sameeyo intaan maamul la samaynin dusha laga keeno in dib u heshiisiin la sameeyo arrintaa maamulka Jubbaland may garwaaqsanin in dib u heshiisiin la sameeyo waxaa la soo jeediyey in doorashada ay maamulaan degmada Garbahaar ay tagaan ciidamo booliisa oo ka socda nabad ilaalinta AMISOM taana way diideen maamulka Jubbaland waxaa la soo jeediyey guddi
xaqiiqa raadina in la diro oo loo diro gobolka Gedo iyo Garbaharey guddidaasoo ka socota maamul goboleedyada wasiiradooda arrimaha gudaha si ay u soo ogaadaan mushkiladda state-kan Jubbaland inta ay qodan tahay magaalooyinka dhan ay tagaan arrintaana way diideen hogaankii Jubbaland intaas markii la isla afgaran waayay waxay noqotay meel looga gudbo in la waayay waxa aad loo tuunsan yahay in arrintu ay dhaafsiisan tahay inta inoo muuqata wada shisheeyana ay dabada ka riixayaan arrintani inaanay si fudud u dhammaanin kana hortaagan yihiin inay doorashadu u dhacdo si nabad ah oo isla wada ogol arrintaa runtii dowladdu dadaal walba way ka gashay sidii gobolka Gedo doorashadiisu ay ula mid noqon lahayd isteediyada kale laakiin waxay ku adkaysteen maamulka Jubbaland in iyadoo aan dib heshiisiin la samayn iyadoo hadda dagaal ka dhaceen 10 maalmood ka hor iyadoo xaaladdu aanay deganayn oo ay doorashadii hore ku qaybsameen inay hadda maamul geeyaan arrintaana waxay dowladdu u aragtay inay keenayso iska hormaad cusub oo isku dirta shacabka Soomaaliyeed isla markaana aan suurtagal ahayn sida uu uga mid yahay gobolka Gedo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa gobol walbana xukuumadda u danaynaysa oo uu uga mid yahay wixii duruufay iyo shacabka dareenkooda ka jirana ay waajib tahay in laga jawaabo sababtoo in lama rabo wax hadhowta mushkilad keenaya intaas oo wax in guddi la diro in ciidamada dhexdhexaad la diro iyo in dib u heshiisiin la sameeyo saddexdaas soo shaqeynayba way shaqeynayaan arrinta Soomaaliya ayaa iyadoo ka mid ahayd arrimihii laga wada hadlay shirka sanadkan sida la wada socotaan horena u jirtay kuraasta Somaliland ee gobolada waqooyi waxaa lagu qabtaa magaalada Muqdisho waxaana maamula dowladda federaalka oo ah xukuumadda dhexe Soomaaliya maadaama aanay jirin state ama maamul matala oo la doorto dadkuna ay yihiin deegaamo iyo qabaa'il reer waliba kuraastooda gaar weyn cidda kaliya u dhexin ay tahay dowladda federaalka Soomaaliya waxaa soo baxday gudoomiyaha aqalka sare senator Cabdi Xaashi oo ah oday muxtarima in la yiri hal la siiyo guddiyada doorashooyinka halaha laga siiyo xubnaha hal la siiyo iyadoo aanay ku jirin heshiiskii 17 Sebtembar iyadoo aanu qof ka mida xildhibaanada 330 xildhibaan ee dalku xaq u lahayn in isaga gaar wax loo siiyo iyadoo aanay qancinaynin qabaa'ilkii kale iyo dadkii kale ee kuraasta lahaa in kuraastooda qof maamulo ee ay dhammaantood daba taagan yihiin dowladda oo ay tahay central body-ga ama xudunta maamulka Soomaaliyeed iyada oo aan qofka bini'aadamka lahayn imkaaniyaadkii guddi doorasho uu ku maamuli lahaa sababta guddi doorasho waxay u baahan yihiin miisaaniyad waxay u baahan yihiin tababar waxay u baahan yihiin hooy waxay u baahan yihiin iyaga laftooda in la soo qiimeeyo oo la soo baaro mid dambiila qof dambiilaba qof u qalmaba qof shuruudaha bixinayaba intaana qof aan fulinahayn oo aan xukuumad ahayn oo miisaaniyad lahayn aan qaban karin xukuumaddu waxay ka tanaasushay oo u tanaasushay guddidii dhexdhexaadinta iyo odayaashii madaxweynayaasha ka ah maamul goboleedyada in Cabdi Xaashi la siiyo 4 xubnood oo guddida doorashooyinka ee ka mid ah guddiga doorashada Soomaaliland iyadoo dowladdu intaa qabatay oo hal qof intaa la siiyay haddana wuu diiday senator Cabdi Xaashi inuu qaato 4 xubnood oo ah 40% xubnaha guddiga doorashooyinka iyadoo ay ahayd qaab iyadoo ay ahayd sharci darro iyadoo ay ahayd cadaalad darro haddana isagii baa diiday intaasi markay dhacday waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inaan ku wargeliyo shirkii oo dowladdu tanaasul walba ka samaysay hadday Gedo tahay hadday Somaliland tahay iyo hadday guddiyada doorashada tahayba in walaalihii qaar ka mid yihiin ay nala fahmi waayeen oo ay nala garan waayeen in doorashadana si doorashada loo dardargeliyo in qodobadana aan isla meel dhigno
qodobada aan idiin sheegay saddexdaa qodob la islama meelay marka laga reebo qodobka koowaad ee guddiga doorashooyinka oo dowladdu furtay xafiiska prime ministerkuna uu diyaar u yahay in wax ka qabto labadii qodob ee kale sidii bay u taagan yihiin sidaa darteed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ku taliyey maadaama la sugayo fadhigii wadajirka ahaa ee labada aqal berrito oo sabti ah oo bishuna 6 tahay in shir dambe la isugu soo noqdo maadaama aan la baajin karin shirka weyn ee labada aqal isugu imanayaan ee dastuuriga ah ee sovereignka ah ee madaxbannaanida dalka ah in la isugu soo noqdo shir dambe oo muddadiisa iyo madashiisa ee la soo sheegi doono si wada hadalladu ay halkaa uga sii socdaan laakiin waxaa muhiim ah mar walba in dadweynaha lagu wargeliyo halka wax marayaan iyo xaal siduu noqday runtii dowladdu waxay muujisay dabac waxay muujisay tanaasul waxay muujisay odaytinimo iyo geed fadhinimo waxaa jira nin walaalkaaya oo sabirka iyo deeqsinimada ku raadiya sadbursiinyo marka walaalkii u sabro ee uu deeqsina u yahay is yidhaahda ka badi oo ka kordhi oo sadbursiinyo ku raadi taasina ma shaqayso ugu dambayn waxaan u mahad celinayaa dhammaan dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka member stateska ka soo qayb galay madaxdoodii runtiina aad u dadaalay caawo keliya waxaan garanayaa madaxweyneyaal ilaa 6dii maqribnimo ilaa 12kii habeenimo fadhiyey kursi aan mar qura ka kicin ee sugayey in natiijadu ay ku dhammaato guul iyo barwaaqo waan u mahad celinayaa madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe waxaan u mahad celinayaa madaxweynihii martigeliyey kulankan ee aan habeen iyo maalin nasan axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaan u mahad celinayaa cumar finish waxaan u mahad celinayaa oo ah gudoomiye gobolka banaadir waxaan u mahad celinayaa madaxweyne siciid deni waxaan u mahad celinayaa madaxweyne axmed maxamed salaam waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha aan nasan ee aan fadhiisan ee saacad walba taagnaa ee cabdicasiis lafta garan madaxweynaha koonfur galbeed waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celino reer galmudug iyo reer samare waxa aan la ilaawi karin ciidamada kala duwan ee ku sugan galmudug hadday yihiin ciidamada militariga gorgor hadday yihiin booliiska iyo harimacad hadday yihiin security-ga iyo sirdoonka dhammaan ciidamadu waxay guteen waajibaad waana arkaysa in cadow isku dayay inuu khalkhalgeliyo shirka sidii tallaabooyinkii ay ka qaateen iyo guulihii ay ka soo hooyeen iyagana waa loo galgeliyey ugu dambayn bahda saxaafadda waxaan leeyahay saacado badan baa taagnaydeen 5 maalmood iyo 5 habeen saxaafaddu mar keliya kama ay qoob qaadin madasha shirka iyagoo rabay dadweynahooda inay la wadaagaan go'aamada iyagana waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin in allah laa yudiicu ajra almuxsiniin ilaahay ma dayacayo wanaagga dalkiina iyo samirka aan lahaydeen ugu dambayn shacabka soomaaliyeed ee naga dhul sugayay iyagana waxaan leeyahay bishaaraysta shirarku way sii socon doonaan dalkuna iyo horumarkiisuna way sii socon doontaa waana la guulaysan doonaa waa mahadsantihiin